cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Hirshabelle tababarna ku qaatay dugsiga tababarka ciidanka booliska Hirshabelle ayaa maanta loo soo xiray tababarkii 3 bilood ugu socday dugsiga tababarka ciidanka booliska Hirshabelle ee Jowhar waxaana ka qayb galay munaasabada tababarka loogu soo xirayay ciidamada booliska Hirshabelle oo ah ururkii saddexaad ee ciidamada booliska Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen wasiirka amniga Hirshabelle taliyaha booliska Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale waxayna soo bandhigeen ciidamada dholotus kala duwan waxayna u muuqdeen kuwa si gaar ah u tababaran madaxweyne taliyaha ugu dambeeyay hortiina waxaa maraya horinta calamada waxaa horkacaya laba xidig leh Cismaan taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Xasan Ciise Xasan ayaa amaanay ciidamada sheegayna inay kaalin weyn ay ka qaadan doonaan amniga deegaanada Hirshabelle maanta waxaan xaflad u xiraynaa madaxweyne waa dafcadii saddexaad oo ciidanka booliska dawlad goboleedka Hirshabelle dafcadii saddexaad oo maanta hortaada taagan oo gaadacyaarka ku sameeyaysay oo aan rabno maanta inaad noogu xirtiin xafladda loo xiro oo aan ka soo xulnay Hirshabelle tababar haddii la galo waxaa la rabaa ciidamada in lagu kala saaro waxaa loogu talagalay mid ku xun iyo mid ka fiicanba inay ku kala helaan mid ku xun waxaa la rabaa inuu ku baxo tababarka dhexdiisa kii fiicnayna uu ku soo haro wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa ka hadlay munaasabada madaxweyne ciidamada booliska Hirshabelle waxay si guud ugu taagan yihiin ilaalinta dooridda iyo ku dhaqanka sharciyada waxay diyaar u yihiin ciidamada booliska ilaalinta iyo isku furida wadooyinka degmooyinka ay ka kooban tahay Hirshabelle iyo sugidda ammaanka gudaha degmooyinka si ay qalalaasa iyo dhibaatooyin aysan ugu dhicin sidoo kale ciidamada booliska Hirshabelle waxay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan doorashooyinka heer qaran iyo dowlad goboleedka Hirshabelle oo nagu soo fool leh hadduu ilaahay raadabayaqada sanadkan 2020 madaxweyne iyo dhammaan saraakiisha ka soo qaybgalayaasha halkan ku sugan waxaan si guud ugu dardaarmayaa ciidanka nasiibka u yeeshay inay noqdaan dafcadii saddexaad ee booliska Hirshabelle inay mas'uuliyad gaar ah ka yeeshaan oo sugidda amniga dadka iyo dalka inay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara sumcadda iyo sumcad darrada dawladnimada qaar ka mid ah ciidamadii tababarka loo soo xiray ayaa muujiyay dareenkooda dareenkayga si fiican tababarka qayb qaaday waa ku mahadsanyihiin madaxda kulli waa u mahadceliyaa Axmed Muuse Maxamed ma sha Allah maanta wax badan ayaan soo bandhignay ahaata mid maskaxeed ama mid jireed ma sha Allah Hirshabelle madaxdeeda ugu mahadcelinaynaa muddo 3 bilood meeshaan ku jirnay shacabkeenana waxaan rabnaa inaan macnaha u dadaalno waxayna la baran aan la hortagno waan ku faraxsanahay maantana waa noo iid kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa tababarka u soo xiray dufcadii saddexaad ee ciidamada booliska Hirshabelle isla markaana dardaaran u jeediyay ciidamadani aad ayaan ugu faraxsanahay maanta waxa meeshan ka dhacay oo tababarkii 3 bilood u socday ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle qaabka aadka u wanaagsan oo u soo bandhigeen wixii 3 bilood iyo muddada 3 bilood wixii la baray u soo bandhigeen aad ayaan ugu faraxsanahay alla ayaan uga mahadcelinaynaa oo tababarkaas muddada soo socday si nabadgelyo ah noogu soo dhameeyay alxamdulillah ayaan leenahay waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo ciidamadan dufcadii saddexaad ee maanta loo soo xiraayo tababarkii muddada u soo socday waxaad qayb ka naqanaysiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aad u fac weyn ayaad qayb ka naqanaysiin haddii ilaahay raalli ka noqdo gaar ahaan midka Hirshabelle waxaad nasiib u yeelateen inaad maaragtay dufcadii saddexaad naqatiin dadkaana inaad maaragtay mas'uul ka naqatiin amnigiisa ayaa la idinka rabaa waad ogtiin dalka Soomaaliya baahida ugu weyn hadda ka jirta waa amni haddaan amni la helinna horumar dalku ma gaaraayo wax waliba waxay ka dambeeyaan amni hadday horumar ka tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay meel iyo hadday cibaadada tahay dhan waliba haddaan amni la haysan meelan amni aan lagu cibaadaysan ma caafimaadna loogama shaqay karo horumar kalena ka imaamaayo waxaa la rabaa inaad amniga qayb weyn ka qaadatiin waxaa la rabaa shacabka inaad saaxiib la noqotiin sidaad u heshiin xogta cadawga aad u heshiin booliska waxaa la rabaa inuu u dhawaado bulshada qaybaheeda kala duwan saaxiib la noqdo bulshadana dhex galaa la rabaa insha Allah
haddii ciidamadan saan ay tababaradan saan isaga soo daba baxaan waxaan rajaynaynaa inuu amnigu aad u wanaagsanaado horumarkuna uu soo hagaago maalinba maalinka ka dambeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin maantana sidaas ayuu noogu xiran yahay tababarkii muddada 3 bilood soo socda sidaas ayuu waxaa maraya hurinta koobaad oo ka kooban 99 askari waxaa horkacaya maareeya صادق الاسمان دلك نيوز تي في جوهر